الناس اللي صح أريك بشيء يشك دماء لا وينا waxaan ka muuqato inaad ul wadato bakoorad wadato timihii waa deysatay صح leeyahay bal ayadana nabadoon u ekawa isleeyahay maadaama uu soo nabadoonada okay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo videogii aan ku talagalnay caawadani waayahay caawa saawada jiddan waxaa la joogo nin culus nin weyn musharaxa madaxweynaha galmudug لقال أرجع زار وحلا ليبان حسن محمد ليبان طبعا الناس اللي صح أريك بشيء يشك دماء دماء الليبان راح كم بداية أرضي هذا كقلين تبيسي متكمل السكول المقدسة ورجع جرح برا وهستجي بس أنت صار أنت قدر قلين والله دي أنت مركي كوري سياد في كسب برتبيت كنا أمات إماتي يوتيوب كنا فضلا سبسكرايب شير لايك شير كومنت أنت وكبحي وما سنتهي أصعبتها لو ذاك طبعا وحين نطلع سيان وهلنا صاحبه ونحسن سيد عديقه كلا واتكم ما سنتهي دعوة شر واي هاي اللي بنا ربنا سؤال دوره ويدي عوا مستر ما يكسره يوتيوب channel عزام اوفيشال ku dhawahay walaal اوكي ليبان oo ma santahay caawa ila joogtaa waxaan joognaa studio koobaad joognaa waayahay waa gashay oo maleeyahay imtixaankii oo dawladda iyo imtixaankii hore labada agshay aad iyo haye maxaa kaaga soo baxa wallahi imtixaanka fillahi alxamdulillah tijaan ku farxno waa maanta jaamacad aan ku tagi karno صح ilaahay waa nagala kulansiiyay dad walaalaheeno ayagana dee oo naga haray waa jiraan ayagana waxa u rajeynaa soo kabasho dambo صح aan u rajeynaa laakiin anaga fillahi alxamdulillah maanta natiijaan ku farxno waalidkeeni anaga nafsadaanta aan ku farxno ilaahay waa naga siiyay ilaahna maantaas u celinayna insha Allah وماستها الليبان waxaa jira dhaliilo fara badan oo ka soo baxaya shacabka gobolka Banaadir adigana waxaa ka mid tahay shacabka gobolka Banaadir dhaliilahaas maxaa leedahay wallahi niyo wax walbo la qabta dhaliil way jiraan صح runaantii imtixaankii hadda sida muuqata waa imtixaan la siyaasadeeyay صح tusaalahaan haddii aan u soo qaato wasiir godax barre wuxuu tagay gobolka Gedo صح runtii magaalada Galbaharri markuu tagay wuxuu booqday qabrigii Allah u naxariisto madaxweyne Maxamed Siyaad Barre صح kadib markuu ka soo dhaqaaqay iskuul dugsi sare ayuu meesha ka dhagax dhigay صح dabadeetana wuxuu ku dhawaaqay in imtixaanka hadda la saxayo oo form 4 ka ah inay ardayda ugu buundo sareysa ay yihiin gobolka Gedo صح waana imtixaanka natiijada inta la soo dhajin marka imtixaanka natiijadii lagu dhawaaqay dabcan ardayda uu natiijo sareysan waxay noqotay gobolka Gedo marka waxa iswaafaqi weysay hadalkii wasiirka uu yiri in natiijada iswaafaqi weysay marka imtixaankan waxa la dhihi karaa imtixaan siyaasadeed Soomaaliya marka liibaan oo maasan tahay waxaa jirtay in dhalinta muqdisho lagu eedeynayay isticmaalka baraha bulshada inay aad u isticmaalayeen daawashada heesaha sida hadda barnaamijkan Sharma Boy oo kale oo yani hadal haynta ugu weyn ee baraha bulshada qabtay ahayd ayasha soo xaqiina ma ka jirto wallahi wax walbo waa wataan maxaan ku radaa wax walbo wax qabashay dhibaato way wataan runtii waa iska jiraan adduunka waayahan dambe waa iska jiraan wax la yiraahdo social media internet waa iska jiraan in dunida ay ku soo biirtay ardaydana isku mid maahano qofba wanaag uu faa'iideysta qofna xumaanta uu faa'iideystaa runtii arday waxa arkaysaa fasal dhan fadhida oo xisadii socoto internetka isticmaalayaan runtii taas waa ugub ku ah ardayda Soomaaliyeed marka ardaydu way jiraan qaar intaas wasiirku uu sheegay isagana runtii oo maanta heestii yarkan uu soo qaaday Sharma Boy laftaantiisna uu soo dhaweeyay isagoona dhaliil yarkii uu ku yiri bal waan soo dhaweynaa miri dhalkooda marka aniga tabashaxkeena way jirtaa oo maxaan ku raahdaa in social media internetkaas iyo waxyaabo muqaadarka taabu iyo waxaas oo kale in ardaydu isticmaalaan dhaliil xageena way jirtaa iyadana ardayda ugu badan ee dhacday waa gobolka Banaadir maxay u noqon kartaa ardayda kale ee sanadkan fanfarada ah maxay u noqon kartaa waxay u noqon kartaa cashir waxyaabaha magaalada Muqdisho ardayda ugu badan ugu dhacaan qof walba haduu isweydiiyo qofba si uu soo baxaysa ani runaantii jawaabta ugu sahlan aan ka bixi karo waxay tahay maxaan ku yiraahdaa Muqdisho waa magaalada ugu badan ay ku nool yihiin malaayiin qof 3 milyan lagu qiyaasaa runtii waxaad arkaysaa magaalo dhan oo loo furtay iskuulo gaar ah oo ganacsi loo furtay private ah daaqad laga soo galo runtii waxaad arkaysaa arday fasal laga soo boobootii form 4 la keenay form 4 na wuxuu rabaa arday hore loo soo dhisay intaasan wax soo baranay maanta in imtixaankaasi si aqoontiisa u badbaado rabaa runtii ardayda Muqdisho waxayba u dhaceen oo u badan oo loo soo weey kara maanta ama qiil la u dhigi karo waxay tahay
in maxaan ku yidhahdaa iskuulle ganacsi loo furto commerciala in ay maanta daaqadihii ay kasoo galeen saasna imtixaankii ay ku dhacaan. Master Liban adiga iskuulka ka qalin jebisay iskana bar. aniga horta iskuulka aan ka qalin jebiyey waxaa la yidhahdaa iskuulka madrasada Maxamuud Xarbi. runtii waxaan ku biiray 2012 ilaa 2020 ayaan dhiganay celcelis 9 sano ayaan waxbarasho ku jira aniga. Iskuulkaas aad u weyn. Okay, waxaan rabaa inaan su'aalaha waxbarashada aan ka baxno oo su'aalo kale oo kaftana aan galnaan rabaa. baaqa ugu dambeeya ardayda sanadkan aad u dirayso iyo kuwa imtixaanka hadda ku haray maxay tahay? baaqa ugu dambeeyo oo ardayda iga dambeysa aniga ahaanteeda aan u diray waxay tahay runtii waad ujeedaan waxbarashadii sanadba sanad ka dambe way sii adkaanaysaa. sanadkana uu sii daran oo runtii dowladdu waxay bilowday manhaj ay leedahay iyada u gaara oo maamulkii gacanta ay ku hayso in ardayda Soomaaliyeed la baro. runtii haddii imtixaankii hadda dhaliil laga soo dhajiyay oo ah imtixaanka si fiican looma sicin runtii cashir bay sii noqonaysaa. wasaaraddu waxay isku dayaysaa in sanadaba macallimiin laga sii badiyo tiradii hore imtixaankii sidii aan loo sixi karin loo sii soco qof walba buntada waxa ku lahay la siiyo. runtii sanadkan kale ardayda waxaan dhihi lahay ha dadaalaano si hadhow dowladda ee Soomaaliyeed loogu eedeyn imtixaankii lama sicin iyo lama sicin si aan loogu eedeyn. marka ardayda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahay manhaj adinku aad leedihiin oo dowladdiin idin keentay ayaa nasiib u heshay anaga aan nasiib u helin. runtii taasna waa ayaga farxad u gooni ah. runtii waxaan dhihi lahay dadaala maxaan ku yiraahdaa iska dhisa waxbarashada basic hore ee barefadii hal tago hal la aqri wixii la soo dhigay oo buugtii meeshii loogu tagin. Okay, Liban intaas waxaan kaga baxaynaa su'aalihii sheeg oo waxbarashada ahaa maadaama ardaydii sanadkan qalin jebinaysay ilaahay fadligiisna adiga aad ka mid ahayd ardayda guuleysatay oo natiijooyin fiican keensaday. waxaad ii ka muuqdo inaad wadato dharka calanka Soomaaliya. dharkan calanka Soomaaliya heer intee leeg ayuu ka gaarsiiyay? wallahi qof baheer ma salibis oo qaadatay? wallahi qof baheer ka gaarsiisay. أنا رنتي لحب الكهرة وحيقول أنا طيب أنا أنتميه ديستو. وصلت مع درك هاد جبنا. دركي هذا جبنا صح. رنتي درك وحي كترجمة يعني علن كان الصوماليات. صح. علن كان بلوجا إيشان تحدق أي كترجمة. أوكي. وصل وينا. وحان كهم مغطينا أول وضعته بكورد وضعته تميه وديستي. هاي بالإيشك وحان أوكشكتا. isbedelkaasi maxaa kugu dhaliyay? wallahi isbedelkaas waxaan u dhaliyay mar hadii aan timihii deystay oo Soomaalidii hore bal dadku yiraahdo marka wadada madaxweynaha Soomaalidii hore u ekaat sax tusaale oday maalin wada ila maray wuxuu yirnay asoo odayga marka xogaa bidaara gasho waa duqoon markaas wuxuu yiri toddobaatimiida timaan deys jirnaniyo sax niyo wax ma igisiiso igu la kaftamay sax marka timaa horta 6 bil koran qorshay inaan deysto runtiina maanta halay joogan waad u jeedaan oo runtii intaan in ka badan u sii rajeynaa. runtii hidahay dhaqankeena kamid ah runtii waayahan Soomaalida waxaa ku soo batay maxaan ku yiraahdaa dhaqankii Soomaalida in laga tago ah in halaas la xirto taasoo diinteena aan dhaqan u ahayn maxaan ku yiraahdaa diinteena isaan raalli ka ahayn oo raallisan ka ahayn ummadda yani bulshada oo nool isaan raalli ka ahayn. runtii ani waxyaabaha u dhaliyo waxaa kamid ah in Soomaalideeni iyo dhaqankeeni iyo hidaheeni in aanan ka tagin. usha ku soo hartay usha waxyaabaan u wato waxaa kamid ah mar hadii aan timihii deystay oo maxaan ku yiraahdaa oo dhaqankii aad yani muujinayso waxaas leeyahay bal ayada nabadoon u ekaawa isleeyahay marka maadaama usha nabadoonada ay qaataan. Okay, waayay Liban Facebook isticmaasha mar waxa ku soo qorataa musharax madaxweyne galmudug ku qornay mar waxa kugu qornay sheeg inaad tahay suldaanka beesha aan beesha magaciisa sheegayno suldaanka beesha maray kugu qorneed mar nabadoona kugu qornay hamigaaga siyaasadeed muxuu yahay? wallahi hamigaaga siyaasadeed wuxuu yahay horta qofba meel uu hami ka rajeeyaa sax. anigu runtii wuxuu yahay hamigayga maanta in dalkan bal jaga uun aan kala jagadaasna aanan aysan ahayn mid aniga uun igu intifaacdo oo waxaan ku noolaa kar aanan ka helin laakiin ummadda Soomaaliyeed aan qabaliga qaybood kala duwan ka kooban inaan u sinaadaan waa maxaan ku yiraahdaa ummadaas oo sinaado waxa uu qabto qiyaamaana si lee dhihin ummadii maxaad waxa uu tariisay inta dhaanta waxa uu sheegays si aan lee dhihin. marka anigu deegaanka ka soo jeedo waa galmudug waxa ku leenahay hal gudoomiye baarlamaan un baa ku leenahay anigu baaji aan sheegeen marka okay halka ay gaari Liban xaraan su'aalaha soo gabagabeeyay rabaa barnaamijka soo gabagabeeyo haddii aad noqoto madaxweynaha Soomaaliya
dalka iyo dadka iyo diinta maxaa u qabanaysaa والله soomaalida horta waa la iska yahaan qofku markuu musharax yahay qofba wuxuu yidhahdaa anigu waa wadooyinka fura waxba saana noqonaa صح qofba siyo u faanaa laakiin Sidaa. qofku markuu kursiga u fadhiisto oo labada bil ugu horeysa mushaarka ugu horeysa iyo bulburuuftii uu isku arko oo isbedelo qofka wuxuu isleeyahay ballamadii shalay ma daba kaco laakiin aniga dhihi maayo ma isfahanaa ma dhahay intaasa ummadda soomaaliyeed u qabanaya dhihi maayo wax nooga sheeg adi hal iyo labo maxaa dalka u qabanaysaa laakiin aniga waxaan jeclaa dalka inaan hami saro aan gaarsiiyo oo caalamka maanta uu la tartamo ummadii aan kasii sareyno ayaan jecelnahay dalka aniga waxyaabaha uu qabanayo waxaa ka mid ah in aan horumariyo jidadka waaweynka ee magaalada oo runtii maanta burbur oo ku saabsan maxaan ku yidhahdaa cadceedii ama leerkii solarka aysan la ekaaleysiin waxyaabo waaweyn oo dalka yacni u qabtana waa ka mid ah in suuqyadii la horumariyo maanta markuu roob imaado dhiiqooyinkii iska fadhiistaan oo bulshada meel ay maraan si fiican marka nadaafad darrada magaaladeena runtii dalka nadaafad darro aada u weyn ayaa ka jirto runtii waxyaabahan aan hamigay ku tiigsanayo oo dalka inuu nadaafad leeyahay meel la markan uu leeyahay bilic leeyahay waxyaabaha aan ku hamiyo